inaad qalad gashaa wax lala yaabo ma ahan, balse waxaa lagu kala wanaagsan yahay qirashada iyo sixitaanka qaladkaas, taasoo caddeyn u ah damiirka iyo kartida ku jirta qofka. Assalaamu calaykum. Magaciigu waa Qaasim Maxamed. Ku soo dhawow muuqaal cusub. Bili-aadanku waa mid u samaysan inuu qaldamo iyo in taladu ay ka wareerto marmarka qaar, balse waxaa lagu kala tagay garashada qaladka iyo dib u sixitaankiisa. In yar oo inaga mid ah ayaa qirsan inay qaladaad kala duwan ku sameeyeen dadka iyaga soo dhaweystay kuna aaminay naftooda, sida walaasheen taladana soo weydiisatay oo kale. Emailkayga ku soo dhacday fariintan oo ay ii soo dirtay mid ka mid ah walaalaha ku xiran janalkeena Hagaha Nafta, waxayna nagu weydiisanaysaa talo. Fariinteedana waxay u qoran tahay sida tan: Assalaamu calaykum walaal, see tahay? Ugu horeyn waxaan aad kugu bogaadinayaa wacyigelinta bulshada aad u qabato. Runtii markii aan daawaday muuqaalo badan aad soo dhigtay barta YouTube-kaaga kana hadlayo intooda badan nolosha xaqiiqdeeda, ayaan jeclaystay inaan fariintan kuu soo diro si aad iigala taliso arrin i haysato. Waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo walaasha ah. Waxaan rabaa inaad talo iga siiso arrin nolosheeda qusaysa oo aan ka hurdin habeen iyo dharaar, waxaana baadigoob ugu jira xalkeeda. Walaal, sheekadaydu waxay tahay, waxaa 2 sano ka hor isjeclaanay wiil aad u wanaagsan. Maasha Allah, waan isguursanay. Alxamdulillaah, waxaan u dhalay 1 gabar. Laakiin waxaa dhacday in layga aqli badiyey ehelkayga iyo asxaabtayda qaarkood ay ugu abuureen nacayb inaan u qaado ninkaygii. Waxaan iscelceliyeyba, waan isbedelay oo wax ixtiraam iyo deganaan ah waan u diiday. Qalalaaso iyo fawdo ayaan ku bilaabay. Walaal, been kuma sheegayo, hadda aan fariintan kuu soo qorayo waan la ilmeynayaa sida aan u salciyey. Isagana mar walbo aan dhibo wuxuu iga codsanayay inaan isdejiyo oo shaydaanka aan iska naaro, gurigana aan naga dumin. Laakiin aniga hadalkiisa iguma soconin, waayo 4 dhinac ayaa hadal kale layga waday. Waxaana gaaray inaan isku arkay inaan ka maarmo jaceylkiisa. Noloshiisana waxaa lii tusiyey inay tahay mid aan u qalmin. Wallaahi, sheekadayda kuma soo koobi karo walaal, sida aan dhib ugu waday isagana uu ii sabrayay. Ugu dambayn waan ku guulaystay inaan iska furo, waxaana u kaashaday ehelkayga, gabadhaydana waan ka watay. Alla, maxaan xanuun marsiiyey saaxiibkay. Waan damqanayaa wallaahi. Ayaan hadal kugu daalin. Hadda muddo 7 bilood ayaan kala furannahay. Wuxuu weli ii wanaajiyaa sidii si ka sii wanaagsan. Wax igama hagrado. Wuxuu jecel yahay mar walba inuu ii soo dhawaado, uu ila hadlo, balse wuu iga baqaa sababtoo ah aniga ayaa ku dhahay iska kay ilow oo inabadgeli. Waxaana isku dayay inaan gabar saaxiibtay ah ku dabo si uu u guursado, laakiin wuu ka diiday. Wuxuuna halhays ka dhigtay jaceylku si kastoo dabin loo maleego, ugu dambayn isaga ayaa guulaysta. Hadalkaas fallaar oo kale ayuu qalbigayga u duray. Wallaahi, anigana waxaan ugu jawaabay, nin ayaa kaa badan ee lambarkayga ammaan ii sii, weliba gabadhaada ima soo weydiin kartid. Isagoo ixtiraamayo ayuu hadalkayga qaatay oo ilama murmin. Si kastoo aan u xumeeyey oo u silciyey, weli wuu u jecel yahay. Anigana damiirkayga wuu soo laabtay. Shalay waan ogaa inuu i jeclaa, laakiin cadowga hadalladooda ayaan ku yeesay jaceylkiisa iyo noloshiisa. Gabadhayda xitaa dembi ayaan ka galay, aabba la'aan ayaan dhigay. Marka walaal, si aan qaladkaas u saxo, maxaan sameeyaa? Ila tali. Walaashaa ayaan ahay oo qalbiga ka xanuunsanaysa. Gabadhayda iyo aabbaheedba waxaan rabaa inaan isku celiyo oo aan ka farxiyo. Wax kasta ha igu qaadatee, xumaanteyda inaan wanaag ku bedelo ayaan rabaa. Nin waa la helaa, laakiin jacayl dhaba lama helo. Walaal, sax soo maahan. Waxaan kaa codsanayaa walaal inaad muuqaal iiga soo diyaariso taladaada, si mar walba aan u dhagaysto oo dhiirigelin aan uga dhigto. Mahadsanid walaal. Horumar ayaan kuu rajaynayaa. Bye bye.
fariintan markaan akhriyo waxay igu yeelatay saameyn gaar ah. walaashay ugu horeyn waan kuu hambaleynayaa. waxaan aad ula dhacay kartida kuugu jirta oo aad ku qorayso wax kasta, haddana aad u raadinayso xal. waddo saxan ayaad ku taagan tahay walaashay. inta fariin ay soo gaartay waa fariintii iigu cajiibsaneyd ee qalbigayga damqisay. sidaas darteed ayaan jeclaystay inaan kaaga soo diyaariyo muuqaalkan. talo bixintaada haddii aan hore u sii galo, ugu horeyn aan isla fahanno kelmadda jacayl. jacaylku ma ahan kelmad oo keliya ee waa dareen ku dhasha si niyad ah oo aan weligiis ka baaba'ayn qofka uu si dhaba u haleelo. jacaylkuna wuxuu ku kobcaa isdhaafsiga lamaanayaashu inay isdhaafsadaan dareen xooggan oo ku dhisan isku naxariisasho, isku tanaasul, isdaryeelid, isqancin, isfarxadgelin, ixtiraam iyo kala dambayn, isgarab istaag, isku sabrid, israaligelin, iyo in ay yeeshaan hadaf guud. jacaylka guushiisa waa guur. guurkuna wuxuu u baahan yahay ilaalin, waayo waxaa soo weeraraya dad xun oo dhibaya wadajirkeenna. waxaa lagu difaacaa jacaylka wadajir iyo is-aaminid. sidoo kale inaad isku ujeeddo ahaataan labadiinnaba waa mid lagama maarmaan ah oo aad gurigiinna u ilaashataan si wadajir ah. ogowna nolosha guurka hal qof ma difaaci karo, balse waxaa lagu difaacaa wadajir iyo isgarab istaag. ma og tahay jacaylka dhabta ah inuu leeyahay cadow aad u fara badan oo isugu jira asxaab iyo ehelba, laakiin waxba kama qaadi karaan xitaa haddii ay isku dayaan inay kala geeyaan lamaanayaasha oo qalbiyadooda ma kala goyn karaan. iyaga ayaana isku dambayn doona wax kastooo ku dhaca. mar carruur haddaad yeelateen waxaa wanaagsaneyd inaad aad u fikirto oo aadan iska fogayn lamaane sidaasi kuu jecel. marar badanna kaa codsan jiray inaadan weligaa ka fogaan. ninka si kasta uu kuu jecel yahay wuxuu ilaalinayaa rabitaankaaga, waayo hadduusan dhab kuu jeclayn dantiisa ayuu kaa fiirsan lahaa oo keliya, oo sidaas oo dhan inaad u waxyeelayso kaama oggolaadeen. ta kuu jecel dantiisa oo keliya kama fikiro. wuxuu ilaaliyaa rabitaanka qofka uu jecel yahay, xitaa haddii ay naftiisa wax ka soo gaarayaan. waana dabeecadaha lagu garto jacaylka dhabta ah. ma og tahay walaashay, owlaaddu niyadda waxay u dhisantaa marka ay waalidkooda wadajir yihiin. carruurtu sidoodaba waxay ku farxaan la jirka waalidkooda oo dhammaystiran, xitaa haddii ay qadayaan oo aysan haysan hanti ku filan. waalidnimadu ma ahan wax yar. qofka waayay ayaana dareemi karaa. qalad aad adiga gashay ayaad mugdi ku gelisay nolosha ninkaagii iyo gabadhaada. waxaad dhashay waa gabar. waxay u baahan tahay aabba garab istaaga, u naxariista, u noqda tiirka nolosheeda ay ku taagan tahay. carruurtu waalidkooda way ku farxaan oo way ku faanaan marka ay la ciyaarayaan carruur iyaga oo kale ah. waxaa laga yaabaa dadkeena qaar inaysan u arkin wax weyn kala tegidda aabba iyo hooyo oo weliba carruur leh, balse waa nolol xanuun badan oo aan la qiyaasi karin. carruurtuna waa nimco allah uu ugu deeqay lamaanayaasha oo looga baahan yahay inay u ilaalsadaan oo ay ka digtoonaadaan cadowga jaceylkooda oo isugu jira ehel iyo asxaabba. ma dhisnaanayo hadduuba jiro mid ka mida lamaanayaasha oo aan qiimo ugu fadhinin guriga. waxaana wanaagsan haddii uu yimaado muran ama khilaaf inaan loo burburinin guriga. ilaan ma jira lamaano aan iskhilaafin dunida. laakiin waxaa cayb ah guriga iyo carruurta in aan la qiimayn oo si fudud iyo wax fudud lagu burburiyo. sida iiga muuqata fariintaadana, adiga xaggaaga ayuusan qiimo ka lahayn gurigaaga, sidaas darteed ayuuna ku burburay. ilaan gurigu hal qof ma badbaadin karo hadduusan garab ka haysan qofka kale ee lamaanihiisa ah. walaashay, dib u fiiri. dadka kuu xumayn jiray gurigaaga, kuguna dhiirigelin jiray inaad iska furta ninkaaga, ayaga guryahooda way u dhisan yihiin oo waxay la nool yihiin carruurtooda iyo qoyskooda. adigana warkooda ayaad qaadatay, waxaadna soo istaagteen adiga iyo reerkaagiiba meel cidlo ah. dadku wax bay dumiyaan ee wax ma dhisaan. jacaylka iyo guurkuna garab kama helaan dadka ilaa lamaanayaashu ee iyagu garab isku noqdaan mooye. dadkuna waxayba ugu jecel yihiin kala geynta iyo xumaanku beeridda lamaanayaasha. sidaa darteed ayaan walaashay waxaan ku leeyahay, ama talada aan ku siinaya ayaa waxay tahay inaad dib ugu laabato ninkaagii
gabadhaadana aad u soo celiso aabbaheed oo gurigaagii iyo jaceylkaagiiba dayactirato oo aad boorka ka jafto adigoo u danaynaya owlaadaada. haddii kale adigu waxaa tahay qof dumar ah oo nin ma weynaysid, isagana sidoo kale ma weynayo naag adiga kula mid ah. laakiin walaashay ma og tahay qofka dayacan maanta? qofka aadka u dayacan waa gabadhaada, waayo weligeed waxay ku noolaan doontaa niyad xumo. marka ay weynaato ayaana ugu sii daran, waayo aabbaheed oo nool ayay u noolaan doontaa sida qof agoon ah oo kale, ama waxay la noolaan doontaa nin shisheeye ah oo wax kasta aga imaan kara. walaashay ha ku qancin nolosha kala dheeraanshaha. sax qaladkaaga, cafis weyddiiso ninkaagii. waa hubaal hadduu dhab kuu jecel yahay wuu ku cafin doonaa oo wuu kuu cudurdaari doonaa, kuna bishaarayso inaad wadageli doontaan nolol ka wanaagsan noloshii hore, maadaama noloshu aad ka soo wada barateen cashiro aad u wanaagsan. dib u dhis qoyskaagii adiga dartaa u burburay, waxaana aad uga hela kartida kuugu jirta. jaceylka sidiisaba waa qalbiga, waxaadna ila muuqataa inaad tahay qof qalbi wanaagsan, sababtoo ah imise qofood ayaa jirta oo dhaawacday lamaanahooda, gurigoodana ku burburiyey waxyaabo kala duwan ama dad kale dartooda ku burburiyey, kuna faraxsan maanta wixii ay ku sameeyeen gurigoodii iyo lamaanahoodii, oo damiirka ka dhintay rajana aan laga lahayn maanta inay dib u saxaan qaladkooda, iyagoo qiil iyo mamarsiyo u raadsanaya weliba. laakiin adigu ma tihid dadkaas oo kale, waayo waxaad u baqaysaa owlaaddaada, waxaad u baqaysaa qofka aad qaladka ka gashay, waxaad ilaalinaysaa jacaylka iyo qiimihiisa. waxaad tahay gabar damiir wanaagsan oo nadiif ka ah qalbiga. qaladaadka aad gashay ma ahan mid adiga kaa yimid ama mid qalbigaaga ka soo go'ay, ee waa mid ay kugu abuureen dad kale. sidaa darteed ayaan kuu leeyahay, sax qaladkaaga oo ahow qofkaagii asalka ahaa. midna aan kuu iftiimiyo, qofka kuu damqadaa waa qof dhab kuu jecel. qofka ku cafiyaa ee qaladkaagii wanaag kugu beddelana sidoo kale waa qof si dhaba kuu jecel. adiga iyo ninkaagii waxaa idin dhex yaalla waa dareen dhab ah oo nasiibkiisu noqday cadow inay idinka faa'iidaystaan nolosha adag ee maanta aad ku jirtaanna iyaga dartood aad u gashaan. laakiin waxaan rajaynayaa inaad isla adiga shalay dhisay jaceylkan baaxadda weyn maantana aad dib u dhisi doonto, waana hubaa kartidaada ayay ka muuqataa inaad awooddo ee ha fiirinin dadka hadalladooda. ilaan waa dadkii shalay meesha maanta aad taagantaha ku soo istaajiyey. qalbiga ka soco oo u dulqaado wax kasta inta aad ka guulaysanayso. ogowna wax kasta waa suurtagal haddii aad dadaal samayso. dhagaha ka furaysa dadka hadalladooda. dadka waa kuwii shalay ku geliyey xaaladda adag oo adiga gabadhaada iyo ninkaagii iyo adigaba aad ku jirtaan maanta. dadka qadari oo qiimay, laakiin ha ka oggolaan inay sii burburiyaan jaceylkaaga daacadda ah ee rajada leh, niyaddiisuna ay wanaagsan tahay. dadku ma joojinayaan ka hadalka arrimahaaga iyo mustaqbalkaaga, laakiin go'aanka waa xaggaaga oo ma u malaynayo inay jiraan wax kaaga muhiimsan owlaaddaada farxaddooda. ha ka labalabayn, taariikhda ayaa ku xusi doonta oo ciyaalkaaga ayaa abaalkaaga hayn doona dib u dhiska qoyskaaga. waxaad heli doontaa dib haddii aad u dhisto qoyskaaga 3 waxyaabood. midda koowaad, waxaa kuu degi doona qalbiga, waxaadna ilaalin doontaa farxadda reerkaaga iyo carruurtaada, maadaama noloshu cashiro badan aad ka soo baratay. midda labaad, waxaa sii kordhi doona jaceylka idin dhex yaalla oo duruufo shalay ay kala geeyeen, maantana daacadnimadiinna aad dib ugu midoobaysaan. midda saddexaad, ninkaaga wuxuu kuu arki doonaa inaad tahay xaas midda ugu wanaagsan, uusan ku khasaarin jaceylka uu kuu qaaday. halkan wanaag oo ah dib u midoobitaanka ayuu ku iloobi doonaa marxaladihii adkaa uu u soo maray adiga dartaa, wuxuuna kaa soo dhowaysan doonaa dadka oo dhan, sababtoo ah waxaad u soo celisay rajadii noloshiisa. muhiimad gaara ayuuna ku siin doonaa inshaa allah. ugu dambayn, dadka qalbiyada adag oo ay naxariista ka guurtay ayaa aaminsan kala tegid haddii ay mar timaado inaysan wanaagsanayn in dib loo midoobo. taasina waa fikir qaldan oo wax dumiya. ee u fiirso, walilaahi almathalu alaclaa.
alla imise jeer ayaan qalad ka galnaa una laabanaa. qalbi adeega aan iska dayno oo aan badbaadsanno jacaylka dhabta ah ee ina hor yaalla. haddii kale maalin waxaa dhici doonta inaan u shallayno. qofka qalbiga wanaagsan ayaa qaladkiisa qirta, dibna u saxa sida walaasheen taladana soo weydiisatay oo kale. jacaylku wuxuu ku macaan badan yahay marka uu dhibaato soo arko. taasna waxaa fahma dadka caqliga badan oo keliya. walaashay hooyo oo keliya ma tihid, waxaad tahay qof boqoradiisa. dhanka hooyanimo haddii aan ka fiiriyo hadalkaaga, waxaad tahay hooyo damiir wanaagsan leh oo qalbi jilcan ee ha ka caajisin fikraddaada wanaagsan inaad u beddesho ficil. kuna dadaala inaad dib u dhisto qoyskaagii quruxda badnaa si naftaada, ninkaagii iyo owlaaddaadaba u wada faraxdaan, mugdigana uga baxdaan. midna xusuusnow, ninkaagii aad u geysatay xumaano kala duwan welina kuu muujinayo wanaag inuu yahay boqor aan la heli karin. waxaana cajiib ah, isagoo si kasta aad u dhaawacday ayuu misana kuu haystaa inaad tahay boqoradiisa. alla jacaylku cajiibsana. waxaa rajaynayaa inaad ka faa'iidaysato muuqaalka, qalbigaagana uu kuugu degay. soo sidaas maahan? inta aan goordhow ku kulmi doonno muuqaalka soo socda, waxaan ku leeyahay waxaad tahay qof wanaagsan, wanaaggiisana ay ka turjumayaan ficiladiisa. alla ayaana kuu hibeeyey karti iyo daacadnimo. aad ayaadna ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalka. mahadsani.